mid ka mid ah doodihii ugu adkaa ee la geliyey miisaaniyadda 2022 Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxaa soo jeediyay xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan Golaha Wakiilada Somaliland. Haddaba xildhibaanku doodiisa waxa uu ku falanqeeyay sida tan. mudane gudoomiye iyo mudanayaal miisaaniyadda waxa loo sameeyay inay wax ka qabato ka jawaabto baahiyaadka dalka iyo xaaladda ku sugan yihiin dadkeena. waxaan rabaa oo wax ka oran doonaa dakhliga oo aan awoodda saari doono dakhliga ka maqan maxaa la yidhahdaa qodaraska miisaaniyadda oo lacag adag ah oo iskugu jiri doona dakhliga dekeda berbera ku maqan, dakhliga ku maqan hay'adda madaarada, dakhliga ku maqan dadka ajaanibta ka shaqeeya lacag. markaa ka bacdi ayaan wax ka oran doonaa loo kharash gareeyey miisaaniyadda. mudane gudoomiye mudanayaal, dadweynaha reer Somaliland ee ku nool miyi iyo magaalo, buur iyo bannaan, xoolo dhaqato, beeraley iyo kalluumaysato waxayna doorteen hal ujeedo oo isku mid ah, waxayna saaran waajib isku mid ah, waxa laynaga rabaa xil gudasho isku mid ah. waa inaynu adeegno dadka reer Somaliland daarayaynu ku marnay ilaahay hortiisa wixii ka hooseeyay mudnaanta la siyaana waa ku xadgudub daareed iyo ka hor imaan rabtaanka shacabka, waa wacad fur iyo ballanka bax, waa inta ilaahay diiday oo dhankaasi. dadkeennu waxay ku nool yihiin duruuf nololeed adag, abaaro, biyo la'aan, dhaqaale la'aan, caafimaad xumo iyo inta ay keento baahida iyo lacag la'aanta. dadka inta wax goyn kartaa way yar tahay oo waa fara ku tiris. sicirka raashinka iyo nolosha oo dhamina kor ayuu socdaa maalinba maalinta ka dambaysa, waxaana loogu talagalay oo adduunyadu ku xakamaysaa arrimaha miisaaniyadda dalkeeda ku xakamaysaa. dadku markayna doortay 16 sannadood ka bacdi ee golihii hore bedelay waxay filayeen inaan wax ka qabanno sicir bararka xarkaa goostay, ganacsatada heshiiska ku ah dhigmiirashada dadka danyarta ah ee aan haddana laga qaadin cashuurihii ku waajibay. waxaana ku caddayn doonaa in cashuurihii laga qaadin warbixinta soo socota ku caddayn doonaa. cashuurta qaaliga ee dul saaran dadka inta danyarta waxayna ka muuqataa dakhliga cashuurahay ka muuqataa siday danyarta u saaran tahay cashuurta iyo sida u saaran tahay maxaa la yidhahdaa ay u saaran tahay dadka aan lacag kale xol laga qaadin. adeegyada bulshada inaan wax ka qabanno ayaa laynoo doortay. cadaaladda, garsoorka, booliska, duruufaha adag ee haysta ciidanka oo ah kuwa ugu mushaarka yar ee uu saamaynta ugu weyn ku leeyahay sicir bararku waxa la siiyaa maantu maxay u goyn karaan mudanayaal? lacag baad qaadataan, waxay qaataan milyan bay qaataan, milyanku muxuu gooyaa maanta? miyaanay ahayn inaynu ka doodno miisaaniyadda inagoo ogsoon biyo la'aanta haysata dalka gaar ahaan gobollada bari iyo sidii dadka haraada biyo loogu qodi lahaa? miyaanay ahayn inaynu mudnaanta siino sidii hooyooyinka umuraaca ee tooshka lagaga umuliyo aynu iftiin u siin lahayn? miyaanay ahayn inaynu ka shaqayno sidii waalidka shaqaysta ee aan dhididkooda waxba u goynin shilinkooda wax ugu jiri lahaa? mudanayaal iyo mudane gudoomiye, horta inagu yaynuu shaqaynaa maynaan wakiiladii shacabka ahayn? miyaynaan ahayn wakiillo shacabku doortay oo ku yimid dareenka iyo doonista shacabka Jamhuuriyadda Somaliland? mudanayaal, miisaaniyaddu waa inaan ka doodnaa inagoo ka fikerayna wax ka qabashada arrimahan aan kor ku soo xusay. waxaase biyo kama dhibcaana inaanay sinaba sax u ahayn inaynu waqti ku dilno waxaan dan u ahayn dadkiina soo doortay ee inoo haweyna. doodayda markaan miisaaniyadda 2022 soo eegay ee rogrogay waxaan halkan mudane gudoomiye mudanayaal idinku soo gudbinayaa doodayda miisaaniyadda. waxaana ka rabaa miisaaniyaddu inay ka jawaabto su'aalaha soo socda. miisaaniyadda 30 jirsatay ee haddana ilaa maanta aan hargeysa ka biyalaadahay mayna mudnayn inaan dib u eegno oo aan isweydiinno maxay hargeysa waraabin weyday oo u sii waday miisaaniyaddu. miisaaniyadda ciidanka qaranka ciidamada kala duwan
ee boqolkiiba 35 ka ah miisaaniyadda intii dalkani jiray haddana aan ka muuqan nolosha haybadda ciidanka mayna mudnayn inaan jihadeeda dib u eegno silaca ciidanka iyo qoyskooda haysta maanta waxaa ka sii daran ka ku gadaaman tiilka ay dhalaan waayo waxay la tiicayaan gaajo caafimaad xumo waxbarasho la'aan waayo dugsi keliya oo bilaashi ma jiro oo ka ugu yar waxa laga qaadaa 15 milyan oo qaataa askariga hal qof oo ilmihiisa alla soo kacaa kufay ee iskuulkii ka soo bixiyey xaguu jaamacad ka keenaya waayo jaamacadihii scholarshipka laga helo waxa qaybsada oo kala goosta inteena madaxda inteena xafiisyada waaweyn fadhida iyo tijaarta ganacsatada baa kala qaybsada fasaqal bixanuun kale ee ugu darani waa scholarshipka aan askarta la siinay inay la soo kacaa kufeen miisaaniyadda 2022 boqolkiiba 250 ka midi mudanayaal waa guniyo mushaar qofna waxba uma jiraan miyayna inaynu ka fikirno siday wax ugu jari lahayn sicir bararka aan waqti ilaahay miisaaniyadda aynu u eegno waxaan u galayaa doodaydii miisaaniyadda dakhliyada maqan waqtiguna waa doonayna madaxweynaha magaalada soo doomiyada baad ma saxay doodaydu xaq uu mudan u leeyahay marka aad dhamaysto sharciga xeerarka ay siinaya waxa soo koobiyana waa soo koobiyo oo ma saxay mudane gudoomiye miisaaniyaddeena guud sidii uu gudu sheegay boqolkiiba 78 waa kastamiyada ka yimaadaan cashuuraha berigana waa 20% waxay ku sheegaysaa in cashuurtaasi inay weli dadka danyarta iyo shacabka ay saaran tahay maxaa la yiraahdaa cashuurtu waayo kiishka daqiiqda iyo sokorta ay cashuurtaas ka soo baxdaa waxa weeyaan wasaaradda maaliyadda ina waa mid cad golahan uu furo cashuurta beriga kor loogu qaadayo shacabka hoos looga dhigay cashuurta maciishada ka sameeyay isku dagaysan dakhliyada kale waa tii beerta sida ay sheegeen afar kastam ayaa cashuurta ka soo baxda boqolkiiba 29 boqolkiiba 29 dhammaan kastamyada kalena waa 7.6% ayay soo saaraan gobolka Maroodijeex saaxil tugdheer awdal 94.5 boqolkiiba miisaaniyadda dalka ayay soo saaraan sagaalka gobole kalena 5.5% bay soo saaraan waayo waxaa rabnaa inay shacabku la socdaan inta kale ee soo hadhayna saddex wasaaradood iyo hay'ado kala soo saaray miisaaniyadda haddaba waxaan muhiimadda siinayaa dakhliyada ka maqan miisaaniyadda ee lacagta adag ee ku dhacda muddadii dalkan ay hay'adaha shaqaynayeen jeebadaha shakhsiyaadka gaarka ah ee golahan rabo inuu ummadda u soo saaro xog ururin aan samaynay waxaanu ku ogaanay in daraska miisaaniyadda 2022 ka maqan yihiin dakhliye waaweyn oo kala duwan kuwaasoo kala ah dakhliyada hoos ku qoran dakhliga hamaha shidaalka berbera dakhliga madaarka cigaal international airport iyo berbera airport ee maalintii dawlad la furay dakhliga dekada berbera oo qaybo ka mid ah maqan yihiin dakhliga ajaanibta dalka ku jooga oggolaanshaha hamaha shidaalka lacagaha ay qaataan hamaha shidaalku wax ka mid ah khidmadaha kirada hamaha dakhliga hay'adaha madax bannaan cashuuraha shidaalka badda iyo bariga dakhliga shidaalka haddaba xisaabtan soo socota waxaad ku ogaanaysaa lacagtu dalka ka maqan inta leeg xog ururin aanu samaynay waxaanu ku ogaanay in bishii dalka uu soo galo shidaal dhan 25,000 oo mitir golaha lagama soo horkeenin warbixintiisii oo naafta iyo 12,000 oo mitir oo batrool ah kuwaasoo ku waajibtay cashuur kirada haamaha iyo dakhliga baadhista mudane gudoomiye mudanayaal dakhliga lacagta ka soo bixi lahaa wuxuu ahaa 25,000 mitir kirada 850,000 inay ku jirtaa beed miisaaniyadda cashuurta dawladda inay 1 milyan iyo 982,250 inay ku jiraan beed cashuurta shidaalka naaftada shaybaarka inay ku jiraan 125,000 oo dollar ayay ahayd lacagta isku deyntu bishii marka la isku geeyo 37,000 baa yimaado oo mitir
lacagta waddanka ka maqanina waxa weeye marka la isku daro guud ahaan waxa weeyaan waa 15 milyan